قردوغيو ترمدي ترقدوديو دحيدو وضا هورتي هروينكي كداريري عانيه اللي قدوغي باد كدردور الليلة دمرين كينو هيديد ولا الليل كدوه كبادن أي نصدا ونو أنت الحزن درور كالي وذا تكني أرسلت أنت يا دنيا ورتي ونتقى وضرار ما كدارا بقلا وان كدوه رتيو دمر لما سني لحبنا دابا حسن لي ما درور بعد كتمي كبادن أي نصدا ونو أنت الحزن درور كالي وذا تكني أرسلت أنت يا دنيا ورتي ونتقى وضرار ما كدارا بقلا وان كدوه رتيو دمر لما سني لحبنا دابا حسن لي ما درور بعد كتمي دقلكينا كوهاريو تاريخي برعد الرئي دوحدي ربا صدمة انتو دادككم من سيد دوكي سوى لباديبان ودالحيس تغيناي دول مرينا كانوا ايديني ولا ليه جاشنكيو دنجي قردوغيو ترمدي ترقدوديو دحيدو وضا هورتي هروينكي كداريري عانيه اللي قدوغي باد كدردور الليلة دمرين كينو هيديد ولا الليل كدوه كبادن أي نصدا ونو أنت الحزن درور كالي وذا تكني أرسلت أنت يا دنيا ورتي ونتقى وضرار ما كدارا بقلا وان كدوه رتيو دمر لما سني لحبنا دابا حسن لي ما درور بعد كتمي كدوه كبادن أي نصدا ونو أنت الحزن درور كالي وذا تكني أرسلت أنت يا دنيا ورتي ونتقى وضرار ما كدارا بقلا وان كدوه رتيو دمر لما سني لحبنا دابا حسن لي ما درور بعد كتمي محاولة الواحد يوصل معطي إلهي سبحانه وتعالى إنه وافجي أما إنه واد النور سوى كان كيري هو كان يجوله يدك ما ضاع محلنا إلهي كدي وح محلة دولة ديجان ك معمر كعصب مكا دولة ديجان ك جيران سبتل ك أو سورة كلية إلى نسين نبت كلية هل كان على يقلب يهرمك ويقفل horta dhalinyarada halkan fadhida ee aan afkooda ku hadlayo waa dhalinyaro ku dhalatay degmada Darboor guud ahaanba laakiin ku nool
waxaan nagu dhalatay ama markaan magaalada marmarnay dhowr qodob waxaanu markaa shir kala qaadanay maamulka maalintaas waxaanu istusnay maxaad ka qaban kartaa waxaa ka mid ahayd waxyaabaha maalintaa noo muuqday inay magaaladu u baahan tahay toon balaanka mariseen ee sida fiican looga shaqeeyey si ay ugu eekaato degmo uguna tartanto inay gobol gaari karto magaalo waxay magaalowdaa markay wadooyin iyo laydh iyo biyo iyo caafimaad iyo waxbarasho adeegyada aasaasiga noocaasa hesho markii aanu qiimeyn samaynay waxaanu ka fikirnay in aynu u baahanay street lighting oo bal ha joogto guryaha gudahooga laamida ama wadada la maraya inay iftiin inoo noqoto markaa waxaanu gallay mashruuc dheer oo ku saabsan cadceedda ama tamarta cadceedda waxa solar systemka ama leyrka ku shaqeeya tamarta cadceedda markaa imaka waxaanu soo qaadnay ama aanu sidnaa 48 laambadood oo kuwa ku shaqeeya cadceedda oo laga yaabo inay halkan ka muuqdaan laambadaha tiirarka iyo qalabka lagu xidhay degmada ay hore u sii yaaleen oo maamulka degmada maayarka iyo maamulka kale si fiican bay loola shaqeeyeen ilaahay ma hadda ka siiyo marka qalabka leyrka shalay qaar baan tijaabinay oo ku xidhnay insha Allah waan ku tala jirnaa haddii marar badan oo kale waxyaabo ka duwan iyo haddii iyaga la soo kordhinayaba horumarka degmada inaan u taagnaano inta awoodeeda مثلا leyrkaasi magaalada wuxuu keeni doonaa inuu qurxiyo wuxuu keeni doonaa inuu bilicda kordhiyo idinkana deegaan ahaan waxa laydinka baahan yahay sidaa u ilaalin lahaydeen ee uu noqon lahaa hanti degmadu leedahay waxaa kale oo iyagana qalabka aan sidnay ka mid ah maadaama oo degmadu ay leedahay dhalinyaro aad u badan dhalinyarada faraha badan waxaanu ka fikirnay bal qalab sportis ama ciyaareed oo kooban inaan u keeno waxaa halkan yaalla 6 kooxood qalab aan ugu talagalnay kubadihii garamaantii guriiska loo heesay ayagana insha Allah waynu ku wareejin doonaa maamulka intaasi waa deeqda yar ee kooban ee aanu ugu talagalnay degmada inaan ku horumarino waanaanu insha Allah tacaala wixii ka dambeeya kolba wixii aanu aragnay ee aanu qaban karnana insha Allah mar kasta waa wada joognaa goor kasta iyo goob kasta si ay horumarka iyo wada qabsigu joogto u noqdo Soomaalidu waxay ku mahmaadaa walaalo isjecel way xoolo badiyaan waana xabaala yareeyaan walaalo isnacabina way xabaala badiyaan waana xoolo yareeyaan macnaha halka ku jira wax weeyaan haddaan gacanta la isqabsan oo aan wada jir wax loo dhaqaajin oo aan la isla talin oo aan qofka qaloocan la toosin oo aan ka horumarka wada taageerin oo aan maamulka iyo kala sarreynta iyo sida nidaamku yahay la isu ixtiraamin waxa ma socdaan degmadu inay noqoto degmo ka soo murbaxda degmooyinka kale deegaanka waxaynu kala degmada ku wareejinaa maamulkeeda solar systemkii ama qalabkii leyrka ku shaqeeyay leyrkii ku shaqeynayay aan ku wareejin doono maayarka iyo maamulka degmada
halkan waxaan ka salaamaynaa mas-uuliyiinta heer deegaan iyo kuwa heer degmo iyo dhammaan qofka joogta iloo kata deeqdan iyo bulshada ku dhaqan degmada Daroor waxaan ku salaamaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaaka bacdi waxaan halkan ku guddoonnay anigoo ku hadlaya magaca duqa magaalada Daroor iyo guddida degmada fulinta waxaan halkan ku guddoonnay akab solar tiilayrka kaydinaysa maalintii habeenkiina sii deynaysay ifka bixinaysa waxaan kaga guddoonnay qurba joogta degmada aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waanaanu soo dhaweynaa tiradaanu ka guddoonnay 48 xabadood oo solar system aanu ka guddoonnay oo ay ugu tala galeen degmadooda uguna soo deeqeen in maadaama mustaqbalku maray jidadka dhaadheer ee ifka habeenku u baahan inaanu ka taagno marka anaguna ka maamulaha waa ka qayb qaadanay waxaan u sii diyaarinay akabkii la taagayo qorihii hore loo yaalay 48 qori way taagan yihiin qayb shalay baanu xidhnay inta kalena maanta iyo bariyaanu xidhnaa insha Allah tacaala aanu ku dadaalaynaa waana maasay qurba joogto aad iyo aad waan soo dhaweynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan kaliya ta kalmad yar oo kooban ku boorinayaa dhalinyarada waxaanu dhex marnay safarkan ka horreeyay magaalada ku nimi dabadeed waxaan aragnay bulshada badankeedii oo balwadu fadhida iyo qaar dabadeed waxaan isnidhi intaa yaree fayow ee garoomada u baxday ee kubadda ciyaaraysa ee fayadhowrka iyo magaranaysaa inay jirkooda iyo maskaxdooda dhisaan doonaya ayaanu isnidhi bal inay magaranaysaa ku sii dhiiradaan oo sportska halkaa ka wadaan oo aad dhiirigelisaan wixii aad karaankiina kari karaysaan ugu deeqa markaa 6 dirays ee 6 kooxood iyo sharabaadadoodii iyo 12 kubadood oo isnidhi maadaama magaalada Garawaa uu ku badan yahay ha ku ciyaaraan inta deeq daba ka daba keenaysaan intaasaan u sidnay waananu ka daba keeni doonaa iyadoo ka badan halkaasi waa hal dirays oo muunad ah idinka hadhow dolo kooxaha u qaybin doona kuwana waa sharabaadadii kuwaasina waxa weeye waa kubadihii mid walba saambal baynu ka soo saarnay xabad muunada markaa sidaa kula wareega bismillaahi raxmaani raxiim waxaynu halkan ku qabanaynaa maanta ciyaar munaasabada oo laba kooxood ay ku wada ciyaari doonaan degmada Daroor waxa weeye ciyaartooyda halkan ku ciyaaraysa dhammaantiin waxaan idiin sheegayaa 6 kooxood ee magaalada ka dhisanba waxaan u sidnay direysyo sharabaado iyo kubadaayaan u sidnay maantana ciyaartana ku sameeynaysan bartan iyo munaasabada lagu qabanayo waa soo dhaweynayeen barnaamijkeena ayba fur looga dhigo hal mid uu maanta kula dardaarmaya dadku markay kubadda ciyaarayaan waxaan waa xirfad waa profession ma aha inuu qofku dagaalamo ma aha inuu caytamo ma aha inuu arkay in maanta laga badiyay inay tahay gunnimo amba dhibaato soo gaadhay waxa weeyaan waxaan waa xirfad maanta laga badin karaa bari tolaad aduna badin kartaa waa saaxiibtinimo hadhow tolena garamada isu bedeshaan si fiican wada ciyaartaan dadka magaalada ka yimid bulshada kamid ahna inay madadaalisaan oo ay idinka dheehdaan inaad tihiin muraayadii dadkan iyo degmadan iyo dalkan oo arkaan dadka idinka yaryar ee ku dayanaya inaad tihiin dad akhlaaq leh oo si fiican u ciyaaraya oo qofna qof caayahayn garoonka gudihiisa waxa ka mamnuuca waxa la yiraahdaa cayda saaxiib ka ahaado oo bonadka amba ninka ka soo horjeeda ha ahaado waxa kaliya teedi ka dhaxeeya waxa weeyaan inuu qofku kabtankiisa dhageysto siirwaluhu wuxuu sheegay go'aanku sameeyay inuu hogaansamo marka uu doonayo inuu siirwalaha go'aan uu qaatay kala hadla kabtanku sida uu uga hadlayaa waa inuu gamcaha xagga daba mariyo isagoo asluub muujinaya iyo inuu garsoorka halkan joogo u muujinayo inuu ixtiraam u hayo uu garsoorkiisana ku kalsoon yahay sidaa ciyaar wanaagsan waan idin ducaynaynaa qaadka iska ilaaliya muraayadii dadka tihiin kubadiina ciyaara iyada idinka wanaagsan jir ahaan iyo caafimaad ahaan iyo maskax ahaanba wix alla yaala wixii aad u baahatiin waan la garab taaganahay wassalaamu calaykum saasay nagu bilaabaysaa ciyaarta insha Allah وبري الله لما بشا عالم كله نقدك وشبك صدا وهلا بلا دسره وبري الله لما بشا عالم كله نقدك وشبك صدا ورتوا قرام بقعدي عيارها
صعب 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 بدن هالوتمو صعب 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 بدن هالوتمو وجهي كرام وضويي نقم بركمتان وقيو حناقذي يا عيال تكابرين وجهي كرام وضويي نقم بركمتان وقيو حناقذي يا عيال تكابرين isbahay sibeliyo boog hore ciyaaraha dadka kaga bogsoodayo bulshadii mid miyaan isbahay sibeliyo boog hore ciyaaraha dadka kaga bogsoodayo bulshadii mid miyaan bartuwaa garoon buqcadii ciyaaraha barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqi bulshaya khayragiyo dumar bilaabow sara kaca sacab 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 badan halootumo صعب 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 بدن هالوتمو اللعبي إنوي سمدي برارها برخدي ونقاديقا ويه هلوكو اللعبي إنوي qurbajoogta dhalinyarada quruxda badan ee sida fiican isu agaasimay wasiirkeena maamulka qaybihiisa kala duwan odayaasha runtii waxaa sharaf noo mudan maanta inaan halkan ku gudoono qalab aada u qurux badan oo ay kow ka yihiin solar systemka iyo dareyska dhalinyarada isboortiga runtii waa maalin sharaf noo leh oo aada u qaaliya waxaan runtii ku boorinayaa dhalinyarada u dhalatay ama ganacsatada u dhalatay degmada ee ku maqan daafaha caalamka inay ku daydaan dhalinyarada isu soo agaasimay ee jeebkooda iska soo agaasimay ee ugu deeqay u fikiray degmadooda inay ku soo caawiyaan qalabkan aad aragtaan maanta midhadhalka maanta waxaan ka baxaynaa madowgii ku yaalay macnaha nuuryada ee godadka dadka daada weyne ku kufayeen waxaa lagaga baxayaa maanta waa solar systemka dhiirigelinta iyo mooraalsiinta dhalinyarada ku howlan ciyaarta isboortiga si ay uga mashquulaan balwadaha sida qaadka ay ka mid yihiin runtii waa wax lagu farxo weeyaan marka waxaan cid kasta u soo jeedinayaa inay ka qayb qaataan horumarka balaaran iyo horumarka balaaran ee baaxadda leh oo u baahan in degmada wax laga qabto waxaan ka guddoonnay qalabka waxaan leeyahay aada iyo aad baad u mahadsan tihiin dadaalkiinana xagga ka sii wada waxaad noo tihiin model lagu dayan karo oo la hiigsan karo oo cid kasta oo degmada gudaheeda ku dhaqan ama daafaheeda joogta ay maanta ku dheehan karaan aad baanad u mahadsan baan soo dhawaada intaa kadib waxaan soo dhaweynayaa wasiirada xukuumadda dowladda Soomaalida iyo qurbajoogta dhalinyarada qurbajoogta ee ka tirsan degmada Daroor waxaan leeyahay soo dhawaada baan leeyahay ku soo dhawaada baan dulleenahay waxaan aad soo dhaweynayaan leeyahay fikirkiina iyo ficilkiina waanu arkaynaa inaad doonaysaan ka qayb qaadataan horumarkii deegaanka iyo ka degmaahaanba aad iyo aad baan ilaahay ugu mahadnaqayaa mar laba waxaan u mahadnaqayaa dowlad deegaanka wakiilada nooga yimi ee wasiirada iyo agaasimayaasha iyo madaxda wakiilada waxaan mar labaad u mahadnaqayaa madaxda iyada
qurbajoogta ismuujisay waa noo curateen ha naga gurina ilaahay idankii waa noo curateen waa noo irmaanaateen ha naga gurina waxaa naga gaadhsiisaan sida idinma u baraarugteen qurbaha idinka sii fog kuwana noogu sheega marka xiga qurbajoogta odayaasha ayaa laga dalbi jiray duco ayaa laga dalbi jiray waxaan idinku ducaynayaa inaan kor mooyo hoos ilaahay idiin celin inaa awooddiinna iyo caafimaadkiinna iyo ubadkiinna iyo arsaaqdiinaba mubaxa laga yeelo ilaahay inuu kor idiin qaado in hoos idiin celin baan idinku ducaynayaa inamadayadiyo baa tihi kuwii aanu soo korinaa tihi kuwii noo tabcay baa tihi kuwii lagu soo halgamaa tihi ilaahay kor ha idiin qaado waxaanu idinku ducaynaynaa caafimaad iyo arsaaq xalaalo oo ballaaran baanu idinku ducaynaynaa annagaa wax naga tartaan sidaa maanta oo kale idinla wax ka daba tartaan ducadaa qaaliya ilaahay hanaga aqbalo waa maalin jimca ilaahay hanaga aqbalo annagana waxaa naga dardaarana inaanu wax idinla qabanno inaanu idin garab galno inaanu cadowgiina ka hor tagno ciddii idinku cadowba ka hor tagno wasiiro iyo nimankaa qurbajooga deer aynoo keenay iyo shicibka dhammaantii salaamta islaamka salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa ka bacdi waxaan leeyahay nimanka reer degmada ahaa ee keenay qalabka waxay soomaalidu ku mahmaahdaa reerkaagoo geediya ninka wax kala hadhow qoodhaa iyo xeradaa la ka waxaa kale ay ku mahmaahdaa soomaalidu ratidabana siiyey dhaalwana akufaan male waa nin degmadiisii wax soo taray ammaan kale uma baahna waa degmadiisii waxaa weeyaan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin qurbajoogta ka tirsan degmada Daroor maxay noo keentay maxay hayto hadiyada sharafta mudan soolarta isboortiga dhalinyaradii ku soo caawisay laydhka iyo dhulka noogu kordhisay degmadayadii Daroor meena lahaan jirin qurbajoog noo timaada iyo dad sare Soomaaliland oo noo yimaada madawiyadu nimaana saaraa ilaahay baa isbedbedel ka keenay alxamdulillaah rabbil caalamiin aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanu idin leenahay islaamaha marka ay shakhsi yar oo magaranaysa oo ka shaqo tagay ee carruurtoodu wax yar ay u keenaan oo safara waxay oran jireen hooyo lagu dhadhamiyo laga dharag waxaanu idin leenahay waanu idin dhadhaminaa insha Allah waan idin dhargi doonaa halkaa kaga haya waa mahadsantihiin waa aad iyo aad baa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib anigoo ku hadlaya afka dhalinta degmada Daroor waxaan halkan ugu mahad celinayaa dhammaan qurbajoogta inoo timid ay noo keentay qalabkii isboortiga solarkii waxaan leeyahay halkaad ka soo saarteen ilaahay wax khayr qaba idinku bedelo waxaan kaloo leeyahay gacan hoo baratay waxay gacan hoo baratay kuma joogto wixii la barin bay doonaysaa wax kaloo ka fiican loo keentaan baan rajeynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan aad iyo aad u faraxsanahay dhalinyaradeenna qurbajoogta ah ee dadaalka inoo sameeyey ee inooga soo gurmaday halkii ay joogeen iyagoo degmadoodan ay u dhasheen ee reer Daroor iyagoo ah haddana halkii ay joogeen dadkii joogay inooga duwan dad fara badan oo qurbajooga oo imanaya jira oo iyagu dana kala fara badan u imanaya oo qaar iska soo caana doonaya gabadha cadcad wataan qaarna hawlo kale u yimaadaan laakiin waxa inoo yimid dhalinyaradeenna qiimaha lahayd oo inoo keenay wax dhalinyaradeenna iyo degmadeennu ay u baahan tahay aad baan ugu faraxsanahay waa idin soo dhawaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dabadiina waa idin mahadnaqaynaa agabka iyo alaabta laynoo keenay waxa weeyaan waa darsi cashar layna barayo in qof waliba degmadiisa wax ku darsado ee inaynu xagga walaalaheen qurbajoogta eegna maahe qof waliba jeebkiisa eego degmadeena waxay u baahan tahay adna waad u baahan tahay qof waliba degmadaada ka qayb qaado waxtarkeeda ka qayb qaado waxqabadkeeda ka qayb qaado sidaynu uga qayb qaadan jirnay waxyaabihii horeba waxaan xasuusinayaa inaynu dhammaanteen aynaan baranin wax laynoo keeno in aynaan suginayn qof waliba waxaad ku xisaabtantaa
ina degmadaada sida walaalaheen waxtarka ay noogu muujiyeen innaguna aynu uga qayb qaadanno dhammaantiin waan idin salaamayaa aad baan idin salaamayaa salaam hal waxaan odhan doonaa qoladeenna qurba joogta ah waxaan leeyahay waa bilowdeene iyaanay go'in waa bilowdeen hadda wixii aad keeni karayseen baa keenteen waxaa laydinka baahan yahay inaad wacyigelin ku samaysaan qurba joogteenna kale ee dibadda ku maqan faafisaan aragtida wanaagsan ee aad la timaadeen oo gudbisaan si dadku way isku daydaana la isugu daydo annaguna dhaqan ahaan waan dhiirigelinaynaa aragtidaasi in dalka iyo dhallinyarada iyo dadkaba wax la gashado oo wax lagu soo kordhiyo oo aan magaceedu la sheeganin reer darooreed baan ahay nin isaaqaan ahay daroor degmada laydhaa baan leeyahay waxba ii tarimaysa haddana wax ku darsan aan wax ku darsanno markasta marka qaybta wacyigelinta iyadana waa idin faray waxaan odhanta hore waa ku mahadsantihiin wacyigelin ku dara oo qurba joogteenna kale hala wacyigeliyo qodobna waxaan odhan shacab weynaha degmada daroor wax wanaagsan baa laydiin keenay hadday magaalada qurxinteedii iyo bilixdeedii tahay oo ay soolarkaa tahay iyo haddii ay dhallinyarada in dirays loo xidho ay kubaddii ku ciyaaraan ay tahay waa bilic waxaa laydinka baahaya wixii laydiin keeno ama dowlada ha idiin keento ama qurba joog ha idiin keento ama idinkuba qabsadoo ilaalinteeda iyo kufaraadeygeeda iyo ilaashigeeda laydinka baahaya idinkana taasaa idinku dardaari lahaa marka hore waxaan mahadcelinayaa isxilaqaanka isxilaqaamina oo iyaduna waajib kulayna saaran ah kullay ma aaminsani inay yihiin alaabtan alaab meel kaleeta laga soo qaadana waxaan aaminsanahay inay tahay alaab ay dad u soo dhiideen uguna talagaleen walaalahooda ka dambeeya ee degmadii jooga inay uga faa'iideeyaan taas waxaa loo baahan yahay inay degmadu ay garato in si bilaash ah ay ku soo qaadan oo ay u baahan tahay iyadana in laga madhaliyo alaabtaa loo keeno waxaan aaminsanahay faa'iidooyinkooda inaan la soo koobi karin waayo leyrkaa lagu dhex xidhay magaalada laga yaabaa hooyo ku turaantiroon lahayd qudcurka ama madowga inay ka daweyso leyrkayaada meesha lagu xidhaya waa faa'iidooyinka ugu yar ee lasoo qaadan karayo kubaddaa la ciyaarayaana qof dhan mustaqbalkiisa ina dhalinyara inay ka badbaadisay iyaduna mukhaadaraad waxyaaba badan isticmaala marka aynu ka eegno waya faa'iidooyinka ugu yar aynu ka faa'iidi karno alaabta lanoo keenay taas waa mid ammaan ay ku mudan yihiin dhammaan ciddii soo abaabushay iyo ciddii ka qayb gashayba waxaan aaminsanahay imika weynkan aniga tijiga ahaan waxay ula kulmay ilaa 3 xaflad ay kula kulmay 3 deeq-bixiyayaal oo iyaga laftigooda kusoo socda degmada waxaan filayaa waxa ay u noqonayaan kuwan qaybtii ugu horreysay kuwa kalena way soo socdaan insha allah inaynu rajo fiican leenahay oo ay dadkii degmada u maqnaa ay dareen lahaansho u soo gelaya ka noqotay dadkeena taasina waxay u baahan tahay in lagu bogaadiyo dadkeenaga maqan waxyaabaha aan isleeyahay sanadkan in uu ka fog yahay baan aaminsanahay ceelka magaalada taas waxay u baahan tahay in laga biyaha halkaa ka soo baxaya ceelka si ay magaaladu u cabbi lahayd in filowgeeda la helo iyadana waxaa sii sameeyey sanadkii hore xafiiska la yidhahdo xafiiska dhisaynka amba xafiiska dejiyo badanka dhisaynada xafiiska nashqadaynta la yidhahdaa sanadkii hore ayay isaguna dhisaynka iyo qaabka biyogelinta loo geli doono magaalada daroor sanadkii hore ayay sii dhamaystiray keliyaata waxaa loo baahnaa sidii lacagteeda loo qorsheyn lahaa ama loogu qaban lahaa iyadana sanadkan waxaan aaminsanahay inay ku jirto qorshaha sanadkan loogu qabanay degmada daroor sidii biyogelin loogu sameyn lahaa dalmasayarnanka degelkeenna ku horayo
طريقي برعد الري دوحدي ربا صدمة انتو دادككم من سيدوك سوى لبادمان ودلحيس تغيناي دول مرينا كانوا ايديني ولا ليه